السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada jaranka Cabdinaasir Guusha. Muuqaalka maanta aad ayuu xiiso badan yahay. Halkan waxaa martiina u ah Cabdiweli Cumar oo ah aktarka weyn ee filimka Habboon. Magaca afgarashidiisu yahay Jamaal. Soo dhawaada Jamaal. Halqadii kugu xisaab badneed filimka Habboon inoo sheeg. Problemka ugu badan ba ma aragtay iyo shaqada ugu badan xaliyaha dhan ba aniga waa ay haysto. Mar oo aan jacayl bilaabayo mar aan coronavirus iyo karantiil isbitaal aan ku jiro. hadartaan uu marayo ma aragtay xirsi iyo ka daba wareegiisa iyo buuqiisi marka wali ma aragtay ma dhihi karo xalqadaasan ma aragtay aad uga helay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin ma dhihi karo xalqa gaar ma sheegi karo hadda oo aan ka helay. Jamaal qaybtee u adag ayaa isleedahay markaad filimka duubayseen? qaybo badan oo adaga ku jiro wali qaar waa dhiman yihiin qaarna waa soo dhaafnay marka inaan ka hor dhacno ma rabo marka qaybo badan oo adaga ku jiro oo marxalado badan laga maray. Jamaal haddii aan su'aasha ku bayaaniyo dabcan filimkan Habboon waa uu ka duwan yahay filmaanta kale xalqooyinkiisana waa ay badan yihiin welina waa u socdaa dabcan xagga saameynta problemka ma ka bedelan yahay kuwa kale oo dhib badan ma kala kulanteen mina? dabcan marka aad filim sameynaysaan inta kale filimkan uu yahay maxaa la yiraahdaa filim la rabo inuu noqdo filim ka duwan filmaanta hore loo soo sameyn jiray haddana uu ma aragtay taxane yahay oo badan aan Soomaalida aysan taxane sameynin tayana la rabo waa dareemi kartaa caqabad la maraayo. waa sax waxaa la marayaa caqabad badan ha noqoto shaqada in la daalo in juhdi badan la geliyo inaad dialogue xafidid oo ilaalisid ma aragtay mawduuca inaad ka bixin waxyaabaha hadda filimkeena uu ma aragtay ku qurux badnaado waxaa kamid ah dialogue in aan la iska hadlaynin qof walba wuxuu iska sheegay inuu ma aragtay qof walba warka uu ka hadlaayo kooban yahay ayada laftirkeeda caqabad waayo marka characteriska laftirkeeda maxaa la yiraahdaa waxa kugu soo aadayo aniga hadartaan filimka waxaa ku haystay xirsi qabliinkiisa caadi maahan waa serious kooran badan. xirsi characterkiisa waa characterka kaliya oo marka aan la jilaayo kaamirada aan dhaho war haleega jaro macnaha oo aan qosolka isku celin waayo waa nin aad u kaftan badan. xirsi macnaha caadiyan markii oo yani serious u sameeyaa waa nin actor ma sha Allah ma sha Allah doorku jilayna door waxa ah ma aragtay cajiibteeda leh ma aragtay oo u baahan in waxa la yiraahdo qof kasta ma keeni karo qof kasta uu sakeeni karin marka marka qaar markii uu iyo Carabi gaja oo laga rabo inuu ka hadlo Soomaaliya gaja ahaay marka qaar waa qosli jiro hadii jiray kaamirada socoto oo filimka la rabo ma aragtay qayb xaalad serious in la madal xanaaq in la sameeyo la rabo iska qoslaayo kaas waxa la wara meesha salaga qabto dib la ugu celiyaan dhaay marka caqabadaha characterkaas oo kale waa kamid tahay qof waxa kula jili kar maxaa la yiraahdaa dareen socda oo marka qaar qaybaha oo dareenka oohinta kale ama qaybaha calool xumada kale sameynayo marka aragtid waa la calool xumaanaysa oo ku sameynaya marka film marba da sameynaysid character walba aad la kulmaysid saameyntiisa leedahay ama qofka aad la kulmaysid. Jamaal intee goobad ayaa filimka lagu jilay? lama xisaabin karo horta waa badan yihiin waa sax haddana filimku ma aha filim oo bilow ilaa dhamaad ah waa filim taxana ah waa sax marba meesha lugtana la gasho ayaad la tagay. Jamaal filimka Habboon ayaa qoray dabcan dad badan baa isweydiinaya qisadan aadka saameynta badan u leh filimkaas qoraay badan qoreen waa sax oo maadaama filimka taxana yahay xalqabo ma aragtay dhowrka xalqabo qof qoray marka xalqooyinkii uu kala xiran tahay marka waxaan u maleynayaa filimkaas inay qoraayaasha uu kamid yahay Otanga Warsame Shile iyo Qadar Ibrahim marka kulli xalqooyin kale oo jiri karaan inuu dadka la qoreen laakiin inta xalqo hadda aan soo fiirsanay dadka kaalinta ka geystay fadlan ugu xirnaaw channelkeena Cabdinaasir Guusha please subscribe notification ka daaro si aad ula socoto waraysiyo badan iyo barnaamijyo badan oo ku xiiso geliyo.